shirkani oo shir gudoominaya maayir ku-xigeenka caasimadda Hargeysa ee Somaliland Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne isla markaasna ay ku wehelinayeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose iyo maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Hargeysa kuwaas oo dhawaan mas'uuliyadooda lagu soo wareejiyay dowladda hoose Hargeysa ugu horreynna qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada ayaa waxay ka warbixiyeen baahiyaha kala duwan ee dugsiyadaasi yaala iyagoo ugu mahadnaqay dowladda hoose ee Hargeysa muddadii ay hoos imanayeen maamulkooda lana hoos keenay dhanka caawinta waxyaabaha baahiyaha asaasiga ah ee u baahan dugsiyadaasi sida ay dowladda hoose ugu hargar baxday barnaamijkan maamul daadejinta ee maadaama dowladdii hoose ee caasimadda aad tihiin in arday kasta oo dugsiga dhiganaya saad nooga ballan qaadeen waxyaabaha culayska nagu haya waxa weeyaan ilmo yaroo gelin dambe imanaya iskuulkii oo haraadan oo biyo aan cabayn biyo caba aan haysan culayskay leedahay inaynu dareeno marka hore dowladda hoose Hargeysa intii sanadkan dabeeqadiisii waynu aragnay oo wax qabad ayay bilowday iskuuladii ay ka bilowday baan anigu kamid ahaa ee deyrkii loo dhisay loo sameeyay runtii wuxuu ahaa mid dayacan buu ahaa markii oo qofka wanaagsan in wanaagiisa la sheego oo qofka xun baan dhaleelna dadka inta shir jiray qabtaan bay cid dhaleelaan waxa dareen ahaan igu dhashay inaan aad ugu mahadnaqo khadar waqtiga aan hawsha la wareegnay budgetku under process baa marka wala laba laab halkii 100 marka hore laga doonayay double baa laga dhigay 200 doolar baa la geliyay in ay marka sanadka dhamaadkiisa iyo waliba sanadka 2019 oo kaliya 200 baa loo geliyay si ay ka buga noqoto baahi faraha badnaa ee aan soo orgnay wax laga qabto mas'uuliyadahan la wareegnay waxa la kamid ahaa in aanu la wareegno mushaharka shaqaale hoosaadka waxa kamid ahaa dayactirka iskuulada extensionka biyaha leydka iyo wixii lamid ah iyo deyrarkiyo wixii aad u dhisma la xiriira iyo furniture-ka imika waxa gacanta lagu hayaa oo ilaa imika waliba qaybna bilaabantay qayb dhamaatay qaybna bilowgoogii uu iska alaabtii la sii dhigay ilaa 9 iskuul 16 ka taangina waa degdeg baa loo dalbaya oo iyagana waxay wala soo gaarsiinay iskuulada maadaama booydiida ay noo imanayso wasaaradda deegaanka aad baan ugu mahadnaqana dhirtan imika qaybinayno waa dhirtii iyagu ay ku soo tabceen hase haatee dhirta had iyo jeer way taa imika aad xustay halkan ku taala waa dhir qaali iyo sigaar loo iibiyaa taana waxaan bala qaadayaa iskuul kasta laba geed oo ka qaaliga ah in aanu keeno ku-xigeenka duqa caasimadda Cabdicasiis Maxamed Xaashi Cagaweyne oo shirkan gudoominayay ayaa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda ay leeyihiin dugsiyada hoose dhexe maayir ku-xigeenku sidoo kale waxa uu hoosta ka xariiqay in har iyo habeen diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan baahiyaha asaasiga ee dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Hargeysa waxa aanu idigu yeernay koow in aanu idii sheegno dhirta aanu idii siinayno ee iskuulada lagu beerayo waxa aanu hore u dayactirnay iminkana aanu ka shaqaynaynaa sidii aanu ula wareegnay iskuulada 5 iskuul iyo 9 iskuul oo imika gacanta lagu hayo iyo iskuulo ka badan oo aanu doonayno iskuul kaste oo dawladda hoose loo wareegtay oo dastuurka iyo sharciguba na siinayo oo maamul daadejinta aanu kula wareegnay in sidoo markii hore ahaa iyo sidoo maanta yahay ay cirkii dhulka isu jiraan annaga oo dadaal fara badan sameyn doona hadii ilaahay inta aanu joogno waxa aanu insha Allah inaan xafiisyada maamulayaasha idigu darno yana insha Allah waan idigu dari doonaa ka talagal loo maamulayaashana aanu idigu hagaajinaa hadii ilaahay waxa kale oo halkan iyadan idigu bishaareynaya maamulayaasha inta la wareegnaba waa in yar laba qaybood weeyaan waxa jirta dawladaha hoose marba ay bixiyaan dhul ama dad dajiyaan dhulka dadka la dajiyo run ahaantii dhulaha danta guuda priority-ga waxa rusinaa dadka jilicsan ee dan yarta iyo dadka qaxoontiyada waxa aanu maanta laga bilaabano priority-ga raacin doonaa labada qaybood ee ay ka kooban yihiin maamulayaasha iskuulada iyo macallimiinta in aanu hadii la helo hay'ad dhisaysana in aanu dhulka reedisiino hay'adahana inaan u dhisa oo annaga taariikhda noo gasho waxa imika diyaara oo dawladdii hoose ay diyaarisay inaanu booyad weyn oo biyo ah runaantii aanu idin diyaarinay oo biyahaasi ay noqonayaan mid iyo darawalkeed iyo shaqaalaheedu ay hoos yimaadaan Khadar Yuusuf Cali oo markii hore iskuulada hoos yimaadaan booyadaas ay waraabin doonto iskuulada oo dhammaan iskuulada anaga hoos yimaada taangiyada noqotay in taangiyadaana Khadar waxaan ku amrayaa uu ku iibiyo taangiyada loo iibiyo loo geeyo iskuul kasto taangi hore haysanaanu taangi dhigno idinkana waxaanu idinka rabnaa daryeelkii iyo ilaalintii taangiga biyaha waxa ka cabaya ardayda macallimiinta iyo maamulka